xaafadda ciddii hadasha xira siyaasiyiinta ciddii iga soo horjeeda xabsiga u dira hadalkayga kii diidana silsiladeeya oo carjuuq dhaha dhammaantiin oo ficilada xukuumadda bixi iyo kahin ay ku caanbaxeen tan iyo markii ay xilka la wareegeen. haddaba maxaa ugu wacan? marka horese ha ilaabin inaad saarto subscribe. madaxweyne biixi ayaa la wareegay xilka Disembar 2017. xukuumaddii ka horreysay ee Silaanya ayaa lagu xaman jiray inay tahay mid u nugul naqdinta iyo hadallada ka fikirka duwan. waxaa kale oo la sheegi jiray sababta ugu weyn inay ahayd in aanay markaasi talada gacanta ugu jirin dadkii la doortay. haddaba madaxweyne biixi oo lasoo doortay la sheegana inuu wadanka maamulo isagu, waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta uu u caburinayo saxaafadda iyo cid kasta oo ka aragti duwan. dadka siyaasadda ka fallooda ayaa sheegaya in saddexda qodob ee soo socda ay sal u yihiin caburinta iyo xarigga ay miceensadeen madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisu. kow, in aanay hayn qorshe iyo xaqiiqooyin ay ku beeniyaan dhaliilaha uga imanaya saxaafadda, siyaasiyiinta iyo dadka ka aragtida duwan. sidaa daraaddeed ay miceensanayaan askarta iyo saldhigyada ay awoodda u leeyihiin inay dadka ku xidhaan. madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisu inay guul daraysteen helidda kalsoonida shacabkii ay kala irdhaysay doorashadu ayaa caddaatay. sidaa darteedna dadku ay u kala fadhiyaan weli qabiilooyin iyo reero. taasna ay u arkeen inay muujiyaan inay awood dowladeed maamulaan oo ciddii ka hor timaada ay xidhan. ma xildhibaanbaa, ma saxafibaa, ma siyaasi, mise qof afgaaraba. waa cid kasta oo ka hor timaada xukuumadda maxamed iyo muuse. qodobka saddexaad ayaa lagu sheegay maadaama uu kaahin iyo muuseba ay ahaayeen askar ku kacaamay maamulkii gali taliya siyaad in ay u fakarayaan sidii loo fakarayay casrigii Oktoobar iyo askartii haysatay. waa carjuuq dheh iyo cidna caqli dhaantaa ma jirto. su-aashu haddaba waa mudane madaxweyne intee in la-eg ayaa dadka la aamusin karaya iyagoo ku dhashay xornimo? intee oo qof ayaa si xisbiyadu ku qaadi karaan oo aad xidhxidhi kartaa ama jeelashu?